Dr. Munassar oo wasiir ahaa oo aa isla soo shaqayseen oo macnaa asagoo kugu kalsoon yacni inaa qashay operation ku samaysay, operationkiina uu successful dareenkaaga iyo siday wax u jireen bal nooga waran arrinkaas runtii. wuuna ifaanay uguma aha laakiin waxa waaye waxaan garowsanayaa inuu runtii wasiirka Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Dhulmarow. Maanta waxaa farxad weyn inuu noo soo martiyey Dr. Saalax Daruus oo ah dhakhaatiirtii ugu waaweynaa ee dalkeena oo ka soo howlgalay deegaano badan, goobjoogna u ahaa marxalado badan oo dalkeena laga bilaabo cuduradii dilaacay iyo abaartii daba dheer iyo dagaalkii 77ka iyo marxalado badan oo dalka soo maray, xitaa markuu shilka uu galay madaxweyne Maxamed Siyaad Bare marxalado badan ayuu goobjoog u ahaa, dagaaladii SNM, dagaaladii sokeeye. Marka maanta waxaan fursad u helnay inuu aan la yara sheekeysano Dr. Saalax Daruus. Dr. Saalax sharaf weyn inoo tahay maanta inaan nala soo qayb gasho. Bal intaan u gudan gelin marxaladihii dalka uu soo maray, xoogaa yar noo sawir koriinkaagii magaalada Muqdisho, degmada Shingaani ayaa ku dhalatay. Xili waxay ahayd oo dalka gobonimo doon uu ku jiro. Marka bal noo sawir magaalada Muqdisho say ahayd waqtigaas iyo yaraantaadii. Fadlan ku soo dhowo. calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mahadsan tahay. waxaan kuu mahadnaqayaa sida aad igu soo dhaweyseen. waxaa kuu sheegayaa in marka bilow runtii waxay ahayd haddaan xasuusto bilowgii elementariga waxaan ku dhigay iskool la dhihi jiray Cardinal Masaya, kabacdina magac kale loo baxshay kadib macalin jaamac. markaas meeshaasaan aad u soo barnay. macalimiinteedii weli waan xasuustaa, sheekh maxamed sheekh xasan iyo darmaan iyo sheekh shooble iyo maxamed cali ciidruus. meeshaas ayaan barbaar iyo waxaas kusoo bartay. kadibna waxaan galay iskoola media superiore sulbaranay, waan soo goodnay media inferiore, kabacdina superiore dugsiga sare iyo dugsiga dhexe. runtii dugsiga dhexe runtii talyaani baa kormeeri jiray. kormeeraha guud nin la dhaha jiray Yobi Lamosono iyo ninka qori jirna wuxuu ahaa Pellegrini Ubaldo oo intaas maxaa la dhahay inuu boorin jiray akhriska siiba akhriska joornaalo oo talyaani noo korin jiray. sember waa sheegaa waana xasuustaa maxaa dhahay habka loo akhriya loo bari jiray. sportiivka ah, meesha cultureka ah, meesha wararka gudaha iyo wararka dibadda si loo kala xabsiyo lacagta ayuuna faahfaahin jiray. aad iyo aad baan ilaa hadda jaceylkaas ayaa igu reebay arintii runta ahaantii. waa mid saan. Maasha Allah. Waagaas ma jiri jirin internet, Facebook iyo waxaas dhan ma jiri jirin. Bal noogu waran akhbaaraadka iyo intay ka heli jirteen Muqdisho. waa runta waay waxaa laba jiray maxaa la dhihi jiray waxaa la raaci jiray radio Muqdisho afka talyaaniga ay ku socon jirtay iyo journaal talyaaniga soo bixi jiray Corriere della Somalia la dhihi jiray. kadibna wuxuu u gudbi doonaa xidigta October. marka Corriere Somalia waxba meesha lagu dhihi jiray. Waxaa u gudubtay dugsiga sare. dugsiga sare markaa bilowdeen waxaad
asoo 2 sano oo kuu socdo ayaa waxaa gashay shaqo wasaaradda arrimaha dibadda. Bal nooga sheekay sababta kugu kaliftay inaa wasaaradda arrimaha dibadda shaqo ka bilowdo iyo dareenkaagii macnaa markaa ka shaqaynaysay wasaaradda insha Allah. haddii aan ku dabaro oo ku faahfaahiyo waxay ahayd sanooyinka hore kadib 2 sano kadib xoogaa yar dhaqaalaha oo caa'ilada waa iska xumeed markaas barashadeeni oo dugsiga sare si u socotay waxaa jiray inaan baran jirnay maxaa la dhahay taybinka garaacida iyo la dhaho stenografia ayaa xamar jab agteeda iskoolku taalo magistraale horteedii ayaa nagula barin jiray meeshaas mid talyaani ah oo la dhaho stefanuti ayaana bari jiray habka qoraalka gaagaaban saan dhaho stenografia nooca gabelsberger ya la baran jiray waxay tahay qofka aad soo hadlahay in aad u qori kartid oo hadhowna dib aad u akhrin kartid markaasaan ka barnay kabacdi markaas ninkaas wuxuu ku shaqayn jiray wasaaradda oo khaarijiyada markaas markuu arkay meeshaas aan shaqadaas oo narofiyada iyo garaacida ayuu isoo bandhigay shaqadan oo maxaa la dhahay wasaaradda khaarijiyada meeshaas ayaan ka bilaabay shaqada si aan u koobo dhaqaalaha oo maxaa la dhihi jiray familiga ahaan markaasna meeshaas ayaan si fiican shaqadii isu badnay beerkaas waxaa joogay ninka aad iyo aad aan u xusmeeyo aan mushoono u ah maxaa la dhahay cabdullaahi ciise maxamed ayuu ahaa wasiirka dibadda markaas intaa socday waataan qalin jebiyey marka qalin jebinay waxaan xasuustaa inaan ahayn 5 qof keliya oo dhammeeyey 5taas oo markiiba wasaaradda maxaa la dhahay waxbarashada noo siisay maxaa la dhihi jiray deeq waxbarasho scholarship Italia markaasaan shaqada ka bilaabay waxaa xasuus ahaa aan rabaa in sheega 63dii ayaan Italia aaday marka anoo boorso stuudiyada wato deeqbarashada waxaa jiray maxaa la dhahay madaxweynaha aadan cabdulle iyo cabdullaahi ciise inay booqasho u socdeen Italia 1963dii waxaa ka mid ahayd wafdigii oo raacay madaxweyne aadan cabdulle cusmaan iyo cabdullaahi ciise marka adoo oo arday ah oo deeq waxbarasho helay ayay diyaaradoodii ku fasaxeen marka taas waxay caddaynaysaa inay ahaayeen dad mutawaadic ah oo runtii dhiirigeliya ardada marka adiga dareenkaaga soo ahaaya diyaaraddaas adiga aad la fuusho madaxweynaha iyo wasiirkii arrimaha dibadda oo markaas hayay bal dareenkaaga nooga waran 63dii markaa soo duulnay xasuustaa aeroboortka oo iska ahaay aviazione laga bixi jiray diyaaradda Alitalia ayaa meesha jiri jirtay markaasaa wafdiga aan soo raacnay waxaa mudan inaa noola jiray keli aanke maxaa la dhahay aadan cabdulle wiilkiis ismaa aadan iyo aniga oo saaxiib ahaan oo waxbarasho isla wadnay dugsiyada sare iyo hoose kulli mar walba isu jiri jirnay oo markaas kadib markii ay shirka dhammaaday aan dhahayna labada dal Soomaaliya iyo Italia markii soo noqday aniga waxaan maxaa la dhahay jiray waxaa joogay safiirka maxamed sheekh xasan Roma markaasaa ilaa muddo sanad u maleynaya inuu gacan ka siinayay siiba ay maxaa la dhihi jiray shaqadiisii waxaa siisay ilaa aan u go'o waxbarashada caafimaadka marka hal sano camal waxaa safaaradda ayaan xooga gacan siin jiray hal sano safaaradda ka shaqaysay
safiirkana sidaa hore oo u sheegtay macalinkaaga hore oo ahaa jiray sanad kadib waxa u go'day jaamacaddii. Jaamacaddii alxamdulilah 6 sano kadib waa idiin soo dhammaaday. Dalka hooyana wuxuu galay kacaankii ayaa curtay. Idinkana marka nooga hadal soo noqoshadaadii oo dalka iyo dareenkaagii inaad dalka usoo noqoto, hamigaagii siduu ahaa? marka markii aan dhammeynay 6dii sano oo dhammaadkaas si fiican oo aan u dhammeynay oo noola guddoonsiiyey shahaadada oo la dhaho Lawre di Medicina oo weli aan ku qaadanay maxay dhahaan lode iyo abaalmarin ah. Waxaan usoo laabtay dalkii. Waqtigaas jacayl iyo damiir Soomaali wax uu qabo ayaa nagu jirtay si labadeennaba, aniga iyo Cusmaan. Markiiba waxaan go'aansanay inaan dalkeen usoo laabano. Waxaan ka bilaabnay shaqada isbitaalka la dhihi jiray Digfer oo aad wasiirka caafimaadka wuxuu ahaa Maxamed Sheekh Aadan markaas. Isbitaalkan waxaa madax ka ahaa Maxamed Cali Nuur. Meeshaasaan shaqo ka bilaabnay, qaybta qaliinka ayaan ka bilaabnay. Markaas haddana waxaan ka qayb galnay dhibaatooyinka sambir soo dhacaysay 71 iyo wixii la socoto oo bilaabnay maxaa la dhahay dhibaatada nagu qabatay kolerada ilaa sanad daacuunka oo nagu dilaacay. xasuusadaas meeshay ka bilaabatay ilaa meesha ku dhamaatay. Bilowgii waxay arkeen dadka takhaatiirta Shiineeska ee joogay Martini ayagaa shakiyey. Markaas ayaa la furay maxaa la dhahay Campo Tredish iyo meelakaas dhan la fiday. Dagaal olole aad xoog la saaray. Waxaana waqtigaas mudan in la xasuusto xoogga noo saaray ama waxqabadka nagu saaray General Samater oo Maxamed Cali Samater iyo maxaa la dhahay kaamka iyo waxqabadkiisii iyo gacantirkiisii iyo maxaa la dhahay transportation waxaas oo nooga fikri jiray. Markaas ayaa ilaa muddo ilaa ka dhammeeno laga cirib tiro aan dhihi karaa biidni illaahi bishanad same ilaa aan joogna mee halkaas ilaa ka dhammaato. waxaa kale jiray haddana maxaa la dhahay oo kale 70 iyo kadib sano 2 sano furuqaas soo dilaacay haddana. Marka anagoo weli shaqadii oo qaliinkan wadna furuqan waa ka qayb galnay. Ma jirin aniga qaliin ba ahay kulligeeni waa wada qayb galay jirnay arrintaas. Markaas ayaa waxaan ku wareegi jirnay guryaha habeennimadii anoo maxaa la dhahay koox ah guryaha xaafadaha kullishood in si loo ogaado dadka isqarinayo oo aan bulshoonin si markiiba aanan si aad u fidin cudurkan ah. Weyn laga gaaray meeshaas oo aanka WHO-ga ay noogu mahadnaqday waxqabadka oo xoog la saaray. markaas kabacdina waxaa dhacday ardadii oo waxaa la sameynayay haddana waxaa la subiyay ololaha horumarinta reer miyiga iyo turistan af Soomaaliga. Markaas ayaa aniga iyo doctor kale waxaan ahayd guddiga oo diraysay ama baaraysay in qof walba ay maxaa la dhahay awood ama caafimaad qabo inuu tuulaha u tago. Markaas waxaa bilaabatay in lasoo ogaaday abaar inay jirto. Ayaga ardaydaas ayaa soo ogaaday inay meeshii aad abaar daba dheer ahayd. Markaas 75 waxaa lay bedelay inaan noqdo agaasimaha caafimaadka gobolka Togdheer. waxyaa maasha Allah waxay ahayd mid oo aad iyo aad
maxaa la noloshadeedi wax u qabanayso maadaama ebedkayga aan dhinacaas u aadin markaas ayaan maxaa la bartay sida loo hortalo noloshada dadka reer maxaa la burco in maxaa la isbarano waxay qabto qaliin ahaan wax kulaato isbitaalka oo qaliinkeedii aan wadno iyo maamulkeedii oo haddana abaabulka waxtaridda iyo waxqabadka iyo daawosiinta iyo daawo raadiska ya labada kaam ugu waaweynaa xerooyinka waaweyn beerka iyo caynabo ayaa ahaayeen maasha allah adoo xamar oo joogay muddo dheer haddana lagu geeyey gobol togdheer badhan dhinacaas iyo sanaag dhinacaas oo yacni lagu geeyey oo bal ka waran dareenkaaga mar waxaa jiray oo lagu mooday maadaama gibil cad tahay qof hindi ah oo lagu mooday jangali oo macnaa dareenkaaga ka waran iyo soo dhoweynta martigelinta reer togdheer sida dadka yacni ay ku soo dhoweeyeen xoogaa nooga waran macnaa sheekooyinka waa maxaa lahay markii agaasima caafimaadka noqday dhowr jeer ayaa martiqaadi waxaas dadka degmada iyo gobolka ay loo sameeyeen jaamac xirsi ayaa ahaa guddoomiyaha gobolka markaas ayaan mar walba waxaan samayn jirnay kormeer degmooyinka oo dhan oo gobolka ku tirsan ama sheekha ahaato ama boorama ahaato ama buuhoodle ahaato markaas ayaa ku faafday waxqabadkeeni iyo kawarheynta iyo waxtarka marka haddii shaqadii caafimaadkana waa sii waday markaasaa maqalta ciyaadada waxay dadka dhan isku imaan jireen xoogaa waxaa jiray xasuusta jangali odaygiisii aabihiisii oo dhahay markuu u yimiday oo igula hadlayo maxaa lahay afka hindiga wuxuu dhahay wuxuu imalay inaa hindina marka maxaa dhahay dhinacaas inta ay ingiriiska haysteen dakhaatiir hindi ba unba ay joogi jireen oo meesha ka shaqaysan jireen markaas anigan hindi war ani hindi miyahu soo dhawaana soomaaliya ahay markaasuu isgartay maasha allah waa kusoo dhaweynaa jengeli waqtigaas wuxuu ahaa wiilkiis wuxuu ahaa dg-ga oo agaasima guud ee wasaaradda gudaha oo markaas wada soo raacnay markuwaana mana xasuusta intaas kaas sidoo kale waxaa inta aan wareegaynay maxaa lahay kormeer ahaan ama sheekh ahaato ama buhaadle ahaadnay mar walba nala soo dhaweynayay mar walba kormeer u yimid xasuustaa faarax waceys allah yarxamhu lasa jirnay oo ilaa aan ka wareegno tuulooyinka oo dhan ay ka fadhiisteen markaasaa buurta sheekh aan soo aragnay cumar arti ugu tunayay oo magaciisi ku yaala aan aragnay jurunta ahantay dugsiga sare aad u fiican waa sheekh maasha allah meel oo waxay ahayd meel isbitaal ku tiilay oo cudurka qaaxada oo lagu talagalay markaas dakhtar ruush ayaa joogay oo aad iyo aad xoogaa yar isticmaali jiray raajada oo aad maadaama si khaldan u isticmaali jiray xoogaa gacmaha aad ka gubatay markaasoo kadibna iska waday alxamdulilah meesha isbitaalkaas aad iyo aad ayaa xoogla u saaran marka haddana kabacdina shantii waa sitaan soo laabtay markaa dhameynay todobatii lixdii bal aan soo laabanay waxaa bilaabatay dagaalkii oo 77
Soomaaliya iyo Ethiopia iska hor yimaadeen. Waxaan xasuustaa in waqtigaasna in Muuse Rabiil oo ahaa wasiirkan caafimaadka isagana uu xoog saari jiray sidii wax loo qaban lahaa arrintaas. Marka waan daba raacnay xasuustaa in meel la dhaho Balanbale aan ka bilaabay. Balanbale Dhuusamareb agteeda waaye oo xuduudka agtiisa waaye Ethiopia. Balanbale waxay ahayd maxaa leh haddana ilaa waxaan tagnay Gabiley waxay noqotay meesha oo isbitaalka xarunta weyn ah oo isbitaal kooban oo wax walba sameyn raajo leh, dhiig, banki dhiig leh iyo waxaas sidii ay wax loogu qabto dadka dhaawac laga imaanaya Ethiopia agteeda Soomaaliya. Ilaa aragnay ilaa aniga Dr. Cali Mungani waxaas markaas ayaan anoo ka joogo Gabiley marka xoogaa yar aan fasax helno ayaan tegi jirnay Kalamardha, buurka Kalamardha la dhaho. Maasha Allah meel aad iyo aad u weyn tahay. Markaas ayaan dhulkaas siday cagaar u tahay ayaa naga kana yaabisay iyo dabiicada Ilaahay meeshaas siiyey. Markaasaa soo laabanay. Markii dagaalkii dhamaystiray xaggaas waxaa na soo maray maxaa la dhahay Generaal Maxamed Samatar oo asaga dhinacaas jiray. Markaasuu loo booday in dagaalkii laga soo laabtay. Xasuustaa ugaatay dadka dhaawaca u dambeeyey aan wax u qabano Generaal Ismaaciil Naaji oo dhaawac qaybtoonay wixii aan u qaban karo u qabanay. Markaas kadibna waataan ka soo naqanay dagaalkii Hargeysa haddana u naqanay sidii oo dadkii dhaawac kale ay jireen Hargeysa oo dhaawac khafiif ah isbitaaladii iskuuladii ay buuxiyeen ayaan kala shaandhaynay. Kabacdi markaas xamar u soo laabanay si haddana shaqadiisii caadiga aan u dib bilaabanay. markii xamar soo laabateen haddana waxaa bilaabay tababarkii aad tababarayseen kuliyadda caafimaadka, shaqadii isbitaalka iyo shaqada kuliyadda caafimaadka. Marka waxaan ka ahaa kuliyadda maxaa la dhahay bare ama kaaliye bare maadada qaliinka guud. Bare waxaan ku ahaa qaliinka degdega ah kirurgiyada urjez oo haddana waxaa lagu dhigay madaxa iskuulka ama dugsiga tababarka qaliinka takhasuska qaliinka madaxa laga dhigay. Dad badan aan soo saarnay oo ilaa hadda takhaatiirta aan soo saarnay ay wada shaqeeyaan ama isbitaalada dalka ama dibadda ay ka shaqeeyaan. Dad aan soo saarnay kabacdi waatii ay haddana waxa dhacayso sii bilaabanayso dagaalka sokeeye maxaa la dhahay gobolada waqooyi. Markaas ayaa haddana waxaan sameynaynay kaltan qaliin ah Hargeysa ayaa kaltan u sameyn jirnay si oo dhaawaca wax loo qaban lahaa. dagaalka ka hor laakiin waxaa jiray in madaxweyne Maxamed Siyaad Bare uu galay shil oo gaari oo asaga iyo dadka soo socday. marka waxaa ka mid ahayd dadkii oo kormeeraha u tegay adiga iyo dhakhtar kale. bal nooga waran dareenkaagii markaas. Waxaan haddii aan ku soo noqdo shaqadeedii waxaa aad iyo aad madaxda u xasuustaa in effect uu sameyn karto waxay in wasiirkeeni caafimaadka markii xanuun qabtay oo maxaa la dhahay xameetid laga qabtay in aanay qaliinka aan ku suubiyey si loo saaro kalsooni si degdeg wax looga qabto dalka gudihiisii. Kadib aanan u baahnayn in dibadda oo maxaa la jiray loola ordo. Aniga xataa gacanteedii aan joogo taas waxay aad mid aad in uu soo thiqa iyo amin aad oo igu qabay inaan qalo asaga. Maxamed Cali Munasar ah oo wasiir ahaa waqtigaas
oo isdhiibay inaa sariirta inuu i jiibsado oo aan bindiga aan kor saaro. macallinkii ku soo baray asagoo Alxamdulilah, kugu qabsoodaha kalsoon tabaalaha oo igu qaliin oo qaabisay. lagu najaxay aa u u samaysay sameeyay. Aha. waa midda kale haddana waxaa xasuustaa mid aad iyo aad haddana shonays taariikh ahaan markii allah yuraxmado madaxweynaha maxamed siyaad barre iyo xasan abshir oo shil galeen oo aniga degdeg leegu yeeray isbitaalka madiina oo la jiifiyey oo aan wixii u qaban karno maxaa la dhahay intaas oo u baahnaa inaan u sameynay aniga iyo doctor khaliil bile anaa meeshaas ilaa aan joognay ilaa meeshaas isbitaalka aan degnay si aan ka warhayno caafimaadkiisa. taasna wax aad maxaa la dhahay igu yeeshoone ninkan madaxweyne ah oo sariirta oo noo jiifay oo kooma ahay waqtigaas oo aan maxaa la dhahay wejigiisii aan u jeednay oo aan maxaa la dhahay faleebooyinka iyo waxaas aan waxaa la dhahay qabadka degdega aan u sameynay waqtigaas intii safarka lagu qaadayo wax dhaqaale si joogo oo television television yani. markaas isbitaalka agtiisna waxaa arkayay dadka madaxda la joogay shiraayeen ay maxaa la dhahay ay la xiriirayeen kuwait iyo shanusi oo wax loo qabto. kabacdi waa lasoo ogolaaday in sacuudiya agtiisa in la keeno sacuudiya la keeno markaa sacuudiya la geeyey riyaa ayaa meeshaas lagu soo daaweeyey.